بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan qiyaarta nala socota waa 20ka bisha June sanadka 2025 waxaan rabaa barnaamijkan inaan idinku sheego wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay dagaalka ciidamada Israa'iil ayaa markii ugu horeysay ka waramay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maanta sida ba'an ay ugu weerareen ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran meelo kala duwan oo kamid ah Israa'iil gantaalaha lagu weeraray ayaa noqday kuwa mucjiso ah iyadoo Israa'iilna laga cabsi qabo in difaacideeda gantaalaha hawada ay noqdaan kuwa fariista oo shaqeyn waaya warbixin ayaan idinkaga hayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi iyo meesha hadda ay wax marayaan iyo qasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray Israa'iil maxay tabinayaan warbaahinta maxalliga ee Israa'iiliyiinta xog dhameystiran oo dagaalkaasi ku saabsan ayaa tali doontaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay in loo baahan yahay in Benjamin Netanyahu uu si degdeg ah ku joojiyo dagaalka haddii kale mushkiladu ay noqon doonto mid ballaaran oo aan waxba laga qaban karin wargeyska Mareykanka ka soo baxay Wall Street Journal ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay markan doorbidayso in dagaalka ay joojiso marka la eego qasaaraha tirada badan ee soo gaaraya taas oo sumcaddii maamulkaasi wax u dhimaya dhinaca kale wada hadalkii u dhaxeeyay waftigii ka socday dawladda Iran oo hogaaminaya Abbas Araghchi iyo waliba midowga Yurub ayaa ka bilaabmay magaalada Geneva ee Switzerland haddaba dawladda Iran war hordhaca ayay soo saartay oo ku saabsan shirkaasi waxyaabaha diiradda lagu saari doono Cabdicasiis Barrow ayaan ahay barnaamijka Barrow Show ayaa daawanaysan taxliilaadkii ugu dambeeyay wararka bariga dhexe ayaan idinla wadaagayaa khiyaaray meel kasta oo aad joogtaan kusoo biira YouTube-kan oo subscribe saara aad baad u mahadsantahay ka imaanaya gudaha Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta laga haysto iyo weerarkii labaad ee maanta qasaaraha badan gaarsiiyay Israa'iil oo hadda warbaahinta adduunka ay ku tilmaamayaan mid mucjiso ah marka la fiiriyo sida loo qorsheeyay weerarada sida ay u dhacaan iyo meelaha la beegsaday intaba wararka ka soo baxaya Israa'iil ayaa waxay tilmaamayaan in gantaalada Iran soo tuurtay markii halka gantaal uu hawada soo galo 26 saaruq isku bedelayo ilaa iyo 7 goobood oo kala duwan ayaa la duqeeyay kuwaas oo ay Israa'iil tahli waayeen nidaamyada difaaca hawada inay ka hortagaan weerarada dhacay sida uu ku waramayo telefishinka Al Jazeera oo soo xiganaya telefishinka Israa'iiliga ah ee 14 ee sida weyn u taageera Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku tilmaamay xaaladda maanta halkaasi ka taagan mid nasiib darro ah laakiin loo baahan yahay in Israa'iiliyiintu ay muujiyaan dadaalo dheeraad ah iyo adkaysi ay kaga hortagayaan xaaladda taagan arrinta kale ee mucjisada ah ee warbaahinta adduunka maanta ay soo bandhigayaan waxa ay kala yihiin shacabka Israa'iiliyiinta ah oo ku jira godad iyo goobo gabaada oo ay uga dhuumanayaan gantaalaha dawladda Iran iyo waliba shacabka magaalada Dahraan oo wadooyinka isugu soo baxay iyagoo taageero u muujinaya ciidankooda iyo shacab iyo waliba dalkooda iyo madaxda sare ee wadanka Iran sida dagaaladu ay u qorsheynayaan marka kala duwanaanshiyo badan ayaa halkaasi ka jirta waxana Israa'iil hadda ay dareemaysaa mid kamid ah mushkiladihii ugu waaweynaa ee dagaalka dhinaca kale markii aan eego waxa maanta magaalada Geneva ee dalka Switzerland ka furmay shirka ay isugu imaanayeen waftigii ka socday dawladda Iran ee uu hogaaminaya wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi Abbas Araghchi iyo waliba wafuudda midowga Yurub waxa looga arinsanayaa xaaladda arrimaha nuclear-ka ah ee dawladda Iran iyo sida wax laga yeeli doono shirkan waxa uu ku soo aadaya iyadoo Iran dagaal rasmi ah ay gashay isla markaana mas'uuliyiin sarsare ay ku weysay dagaalada soconaya laakiin waxa ay ku tilmaantay Dahraan shirkan marka hore wada xaajoodkiisa inay ka horeeyaan in xabad joojinta Iran dagaalka lagu qaaday xabad joojin laga gaaro kadibna magdhow laga siiyo waxa ka dhacay gudaha Dahraan iyo goobihii kala duwanaa ee la weeraray sidaas ay doodda Iran ilaa ay hadda tahay mana jiraan wax mowqif ay bedeleen xalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan aqalka cad waxa uu yiri muddo 2 isbuuc ayaan siin doonaa dalkan la yiraahdo Iran inaan weerar ku qaadno waxaana fursadaasi u bixinaynaa buu yiri shirka ka dhacaya Geneva inay ka yimaadaan is-afgarad iyo waliba isfahan u dhaxeeya dhinacyada hadda loolanka oo u dhaxeeyo
qodobkaas markaan inta uga gudbo madaxweynaha dalka Mareykan aan iraade madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa goor dhaweyd ka hadlay aqalka Kremlinka isagoo halkaasi ku sugan oo Moscow ku yaala waana aqalka looga arrimiyo wadanka Ruushka waxa uu yiri waxaan fariin adag oo culus aan u dirayaa Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israel waxa uu ku qasban yahay dagaalkan in uu joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan caalamka ma sii qaadi karo mushkilad weyn oo xoog leh waxa uu qeexayaa dawladda Ruushka iyo Moscow inay ka dhamaadeen waa sida uu leeyahay dulqaadka ay ku fiirsan lahaayeen xaaladda meesha ay taagan tahay Ruushka si tartiib ayuu u soo hoobanayaa waxana muuqanaya in markan si dadban uu leeyahay Iran ayaan garab taaganahay dagaalkana waa la gali doonaa hadii Mareykanka uu dagaal ku soo qaado Jamhuuriyadda Islaamiga Iran hadalka waxa ka horeeya Putin uu jeediyay kii Dmitry Medvedev oo maanta oogii hore sheegay in dawladda Ruushka aanay aqbali doonin beegsiga Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dawladda Iran waxana ay yiraahdeen Ruushka hadii ay taasi dhacdo Israel waxa ay furaysaa santuuqa dhibaatada iyo mushkiladda caalamka cid kastana waa ay ku guban doontaa Ruushkana ma aqbalaya ayuu yiri talaabadaas in la qaado taa markii aan halkaasi uga gudbo iyo wararkaasi dhinaca kale dawladda wargeyska ka soo baxa dawladda Mareykanka ee la yiraahdo Wall Street Journal ayaa sheegaya xog sira oo xasaasi ah oo ku saabsan in Israel ay ku qasban tahay dagaalka in ay joojiso iyo waliba meesha ay hadda wax marayaan wargeysku waxa uu leeyahay marka la eego maalintii dagaalka Israel waxa uga baxay 200 milyan oo dollar taasoo ka dhigaysa xaddiga lacageed ee dagaalku u baahan yahay in aanay gacanta ku hayn burburka goobaha burburay iyo guryaha dumay ayaa marka dagaalkan uu istaago waxay hadda ku qasban tahay Israel inta ilaa hadda la qiimeeyay sida wargeyska uu leeyahay in guryahaas lagu dhiso lacag gaaraysa 400 milyan oo dollar gantaalaha nidaamyada difaaca hawada ayaa u muuqanaya hadda inay istaagayaan oo aysan tabar badan lahayn marka la eego gantaalaha dawladda Iran ay tuurayso oo halka saaruqba 16 gantaal oo kala duwan uu noqonayo taas oo ku qasbaysa Israel in markii 20 kaasi gantaal ay rabtay inay ka hortagto in gantaal kasta lagu burburinayo lacag gaaraysa 15 milyan oo dollarka Mareykanka waa hadii la adeegsado kan loo yaqaano nidaamka difaaca hawada ee loo yaqaano Miqlac Daawud sida ay ku waramayaan warbaahinta Benjamin Netanyahu hadda wali waxa leeyahay madaxa ayuu ciidda ka ceshanaya laakiin marka la fiiriyo dagaalka waa lagu kala tagay Iran waxay muujinaysaa awood xad dhaaf ah iyadoo hanjabaadaha Ruushka ka imaanaya iyo fariimaha kulul uu jeedinayana ay runtii tahay dagaal kale oo dadban oo Israel iyo reer galbeedka ku socda wararkan iyo wixii ku soo kordha saaxiibayaal waan idin la socodsiin doonaa si gaar ah indhaha ugu hay barteeda YouTube oo subscribe dhinaca Facebook-ana nagala soco oo page-keena Cabdicasiis Barrow follow soo dheh aad baad u mahadsan